السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب سلامة الله وسلامتين من الباجوكتان عشان كان مانتا وعشر مهمة وحنا كسابسين هاي أستامها وليه هاي أفك صومالية طبعا لقد والبو حي لهذا هاي أستامو هذا أستامها أفك صومالية وليه ولا سدح يتوانا أستامو ذي جالس يدك في هندا لكن وحنا كسوق قادنا مد مالين بمد أيان شرح دونا إن شاء الله تسيل لوجو بعض غلطات أنت بدنا يقريان دتك صومالية على مدى وهو رئيس أن سوق قادنا وحلا يقنا على مدى دبركا waxay u qortaa waa sida calaamad dabarka yaliyeeda astaan ahaan waxay u qortaa sidaas dabcan calaamadaas goorma ayaa la isticmaalaa intee meel ayay nigeli kartaa waxaan ka hadlay ka weeyaan ogow calaamadan goorma ayaa la isticmaalaa waa su'aasha ugu horeysa goorma ayaa la isticmaalaa si fiican saga fiir macallin kow calaamadan waxaa loo isticmaalaa marka koobaad erayada lamaan ee ku dhamaada midkood shaqal ama shibane ama labada eray lamaan waxay ku dhamaan karaan mararka qaar laba shibane طبعا انت بدن يدو waxay gashaa laba eri oo la sugeeyay ee loo yaqaan lamaane labada eri hadii midka koowaad oo shaqal ku dhamaado midka labaad oo shaqal midka koowaad oo shaqal ku dhamaado midka labaad oo shaqal ka bilaabanayo waa loo baahan yahay astaanta in la geliyo hadii kala macnaha ayaa lumay sidoo kale hadii eriga koowaad oo shibana ku dhamaado kan kalena oo shaqal ku dhamaado oo laba eri kala yihiin idin waa loo baahan yahay in la geliyo tusaalaha aynu eegno sida erigan hadda hal abuur hadii asaatan aan la gelin macnaha ayaa halaabay hal abuur asoo bixisa hal abuur hadii asaatan laga bixiya ha aadan tan bay raadinta xalina hal abuur marka macnihi la lahaa wuu qaldamay oo ujeedada laga lahaa ereyga sidaas ma hada shaqal buu ku dhamaaday shibna ayuu ka bilaabay kalena marka waa loo baahan yahay shibna shaqalka in la muujiyo waxaan la marka hal abuur si loo ogaan in laba erey kala yihiin waxa la gelinayaa astaantan oo ah dabarka ereyga labaad waxa weeyaan waa waaya arag طبعا waaya arag ereyga koobaad ee lamaan wuxuu ku bilowday wuxuu ku dhamaaday shaqal kana wuxuu ka bilowday shaqal kale hadii aan astaantan la gelin waxa soo waarag asoo bixis waarag macnihi baa bedelmayo oo ever ujeedada laga lahaa way baaba'aysaa waxa la mid ereygaas waa arag ereyga dhaga adeega la mid idina hadii aan la gelin astaantaas macnaha way bedelmayaan marka ereydaas oo dhan oo macnaha halaabayo waa qasab in la geliyo astaantaas oo kale laakiin meelaha kale looma ogolo laba waxa kale oo erey kooban oo macnahooda bedelmaya hadana sidoo kale kan shaqal loo kuma dhamaan shibana kuma dhamaan guud ahaan laakiin macnihi la rabay ayaaba qadka ka baxayaba sida ereydan hudhud oo kale feri hada hudhud waxa ku jirta astaantan hadii astaanta laga dhinac soo baxayo hudud asoo hudud macnihi halaabay everway waxa kale mid ereyga madhab asina hadii aan ligin astaantan waxa soo madhab asoo bixisa madhab ever macnihi laga lahaasana waa bedelmaya marka waa shardi in la geliyo calaamadaas oo kale waxa la mid ereyga haad erigan hadii asaatan la gelin waxa soo baxaya hadaad iyo wixii lamid ereyada noocaas oo kalena waa loo baahan yahay in la geliyo astaanta saddex waxa kale isticmaal kara magacyada ay ku lamaan yihiin aanayst ereyada meesha ugu badan ee la qaldama macallimeeshan way xayawaan kale iska koobin erey ka kooban way laakiin tan aad bay u badan tahay xadiga magacyada ay ku lamaan yihiin aanaystahan waa la gelinayaa sida tusaale ahaan cali deeq oo kale dad baan waxa arkay cali deeq isku xiriirinayo waa qalad in la isku xiriiriyo sababtoo maxaa keeni kara mataqaana cali deeq laba macno way yeelan kartaa kow naanaysa way noqon kartaa aabana way noqon kartaa hadii aan iraana afka laga fahmayo inta ma dhageyso hadaba cali deeq hadaan ana cali deeq waa magac naanaysa waa fahmi kartaa qof kasta laakiin hadaan kale cali deeq way kala duwan tahay oo cali deeq markaas deeq wuxuu noqonayaa aabihi oo naanays maan waxa kale mid ah ereygan loo yaqaan Yusuf Garaad hadii aan israacno Yusuf Garaad waa Yusufki aqliga badnaa marka erey israacsan Yusuf Garaad laakiin Yusuf Garaad ana ka waran Yusuf Garaad waa oday iyo wiilkiisa wada hadlaa markaas oo kale Maxamed Nuur hadaan ka war waa kala gooyin yihiin oo oday iyo markaas waxay noqonayaan magaci laakiin hadaan Maxamed Nuur ka war way israacsiin inta badan waxa lagu fahmaa ereyada sanaaneys oo kale afka dhawaaqa qofka ayaa laga fahmaa in ereyada oo hadayna aanaysaa waa la gelinayaa laakiin hadii aabaha dhal uu yahay la gelin maayo ogow marka ugu dambeysay ereygan la isticmaalo calaamad dabarka xogaa marka la qorayo magacyada shasheeye oo kale Facebook asagoo waxba laga bedelaya si loo qorayaa kadibna hadii aad Allah ha sharaxsaleed ama waxyaabo raacilaad waa hada Facebook geyga markaan la kala Facebook to keegiyaasay geyga lahaanshahan markaan raacsinay wana asaatan geliya online bas waa ereyga si rasmi Ingiriiska hadan macrifo ka dhigi kawara ama qodob raacina online ka aan leenahay internet ka markaas oo loo baahan yahay halaga faa'iideysto afarta qodob ayaa muhiim ah in calaamadan loo isticmaalo inta ka dhan loo isticmaali karo waa maasantiin